بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiinta what is a financial statement. Financial statement waa dokumenti qoran oo ay soo saarto shirkad si ay sawir uga bixiso waxqabadka maamulka shirkadda taa oo ku salaysan xilli cayiman sida 3 bil kastaba ama 6 bil kastaba ama sanadkiiba mar in la soo gudbiyo waxqabadka shirkadda. In la diyaariyo lana soo bandhigo waxqabadka shirkadda waxa ay faa'iido weyn ugu jirtaa stakeholderska shirkadda kuwaas oo ah cid waliba oo dan kale jiritaanka shirkadda sida milkiilayaasha, deembixiyaasha, dawladda, shaqaalaha, maamulka, bulshada iyo wixii la halmaala. waana dokumentigan qoran waxa ay ka eegaan xaaladda maaliyadeed iyo waxqabadka ee shirkadda muddadii la soo dhaafay. Tusaale, dadka deynta siiya shirkadda waxa ay rabaan inay ogaadaan awoodda maaliyadeed ee shirkadda u leedahay inay deyntii iska bixiso iyo in kale. halka shaqaalaha ay rabaan inay ogaadaan haddii shirkaddii kubac samaysay inta ay la eg tahay oo laga yaabo inay u helaan mushaar kordhin ama gunno. haddaan ka hadalno inta qaybood oo ay ka kooban tahay financial statement, badi waxaa warbixintan qoran loo qaybiyaa 4 qaybood oo ah kuwa hortiina ka muuqda. 1 balance sheet, 2 income statement, 3 cash flow statement, 4 statement of changes in shareholders equity. oo haddii rabbi idmo aan sharaxaadaha soo socdo kaga hadli doono. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.